gabadha marwada waxa laga rabaa markuu ninku guriga soo galayo inay halka kaga hortagto iridka inay soo galbiso markay soo galbinayso sida ay u agtahay maaha inay dircishidka xidhanta iyadoo ma sha Allah maalintii la aroosay la boqray weeg ayay ninka waxay kaga hortagaysaa banaanka markasta uu soo galay aan time oo guriga soo galay guriga dibadda kaga maqan halkaas ka soo galbinaysaa way halka markay ugu tagto gurigeeda markay soo galisay dayrka caruuray waxa jooga laga yaaba oo caruurta ruuxooda waxba looga duwayaa indhaha ninkeeda habay siinaysaa waa dhunkanaysaa qalabkii uu diyaarsan bay halkan ku fadhiisanaysaa kursigii shaqadeedii bay qabsanaysaa boqorkii halkaas mar badhina adigoo damxaya xuratul ayra waxay xidhan tahay iyo dharkay sidato iyo noocay u egtahay ma sha Allah uu yahay oo gurigu ma sha Allah yahay ayaa la keenayaa muxuu ahaay boqorkii isagana meeshii soo fadhiisanay halkaas lagu raali gelinaya caruurtii baa laga ilaalinaya qayladii baa laga ilaalinaya halkiisaas boqorku yahay in caruuru soo gasho iyo min muxuu ahaa sanqari ku baxday looma ogola gabadha marwada ay guriga udgoon ee uunsiga leh ee quruxda badan iyo iyadoo qurux badan markuu ninku helo meel la uma socdo xagu aadaya boqoradaas ku jiraya